komishinka doorashooyinka qaranka Somaliland ayaa maanta magaalada Burco ku daafuray qaybinta kaararka codbixinta oo maalinta Sabtida si rasmi ah uga bilaabi doona gobolada Togdheer iyo Maroodijeex. Munaasabad lagu daahfurayay qaybinta kaararka codbixinta oo lagu qabtay hotel Cafe ee magaalada Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay xukuumadda Somaliland, asxaabta qaranka, xubno ka tirsan komishinka doorashooyinka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaa ugu horeyn goobtaasi ka hadlay mas'uuliyiinta komishinka qaranka waxayna faahfaahin ka bixiyeen qorshaha ay ku tala galeen qaybinta kaararka codbixinta. Waxa ka dhici doonta kaar qaybin qof walba halkii aad iska diiwaan gelisay ku diyaar garow oo kaarkaagii u doono laba qodob midna ma dhici doonto ninowna ha ku fakerin mid waxa weeyaan waqtiga noo kordhiya ma dhici doonto komishku formal u qaatay goboladoo dhan baa lagu abalgaraynaya midna waxa weeye halkana dadkii isdiiwaan geliyay ka guure meel kale noogu rara taana sugin ka faa'iideysta waqtiga haysataan oo kaararkiina si fiican u qaata beritoole haddii la yiraahdo 213 goobood oo ka mid ah gobolka Togdheer ayaa hawsha loo kala dirayaa oo Sabtida ka bilaabaysa waxa kale oo la howlgeliyay 800 oo qof oo shaqaale ah oo ka shaqeyn doona kaar qaybinta gobolka Togdheer waxa kale oo la howlgeliyay 160 gaari oo goob walba geyn doona qalabka loogu talagalay in lagu bixiyo waxa magaalada Burco gudaheeda waxa ka furnaan doonta 550 goobood oo kaararka lagu qaybinayo waxaan ugu talagalnay maalinta doorashadu waa maalin qura in qof waliba halkii ka codayn lahaa imika uu kaarka sii qaato si aan berri u dawaqin waayo waa maalin qura mahad noqo oo mahad weyn u jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxaanu haddaan nahay komishanka uga mahadnaqaynaa sidii wanaagsanayd ee daacadda ahayd ee wanaagsanayd ee uu noola shaqeeyay oo uu dhabarka u ritay wixii kharaj ahaa ee ku baxayay kaar qaybinta iyo doorashada. maayirka degmada Burco Ustaad Maxamed Muraad iyo barasaabka gobolka Togdheer oo iyaguna goobtaasi ka hadlay ayaa bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer ugu baaqay inay qaataan kaararka codbixinta. dadweynaha reer gobolka Togdheer waxaan ugu baaqayaa in kaarka la qaato labadii gobol ee hore si wanaagsan bay uga dhacday kana uu ka sii wanaagsanaan doonaa waxaan aad iyo aad ula dardaarmayaa inabada dhalinyarada ah ee ku dhawaadka ee qaadaya kaararka iyo ciidamada qaranka ee 450 ka kooban inay goobahaasi mas'uul ka yihiin nin waliba mas'uuliyadu maalin bay soo martaa mas'uuliyad iyo dhaar baa qaadeen laakiin waa inaad kaar kana qaadataa cidda doonaysana aad ku doorataa waa nasiib darro haddii adigoo muwaadina oo reer Somaliland qofkii aad jeclayda aad dooranaysay waxaad ku doorato aad weydo soo nasiib darro ma tiradii Togdheer iska diiwaan gelisay waynu garanaynaa tirada waa inaynu maantana qaadan murashaxiinta xisbiyada kulmiye wadani iyo xogayaha duulista iyo hawada ee xisbiga UCID oo iyaguna goobtaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay doorasho xalaal ka dhacdo dalka waxayna ugu baaqeen bulshada qaybaheeda kala duwan inay qaataan kaararka codbixinta. codkaad maanta muwaadin bixinaysaa kaasu waa inuu wax ka taro codkaad maanta bixinaysaa waa inuu wax ka taraa itraafka Soomaaliland waayo markaad codaynayso qaran baad codaynaysaa qarankaagana inaan qayrkaaga oo muqdisho jooga ayaa kula anigaan ku ogolayn oo anaad hoos timaada codkaagu waa in muujiyaa oo caalamka u muujiyaa oo dowladaha geeska Afrika iyo kuwa kaleba u muujiyaa inaad tahay dad tashaday dalkiisa maamusha difaacanaya codkooda aanina uga habranayn ilaahay mooye xornimada iyagu leh aanu nin kalena sheegan karin waliba inagu oo midaysan aynu u sheegnaa inay gardarro tahay in maalin walba ilaa ana caalamka isku matalaya xamarra inta ka adoonaya ana xukumaha hadina ma geyro codkaaga tahay duulay walaalayaal waa shacbiga reer Togdheer iyo reer Maroodijeex halka daararka inuu baaqaya
oo halkan marar badan laga soo celiyay oo muwaadin kasta oo jooga gobolka Togdheer iyo gobolka Maroodijeex ilaa ka baagan oo qaato kaarkii isku diiwaangeliyay si uu helo xuquuqda ah inuu doorto cidda uu taageersan yahay. marka waxaan aad u boorinaynaa aad u soo dhawaynaynaa in kaarka la qaato oo qofku go'aan kuma yeelanayo dalkan wuxuu jecel yahay iyo wuxuu diidan yahay toona haddaanu haysan kaarka codbixinta. marka muwaadin kaarkaaga si wanaagsan haddii aan la yidhaahdo gidigeenba. Shaafici Maxamed Ibraahim, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.